السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ميل بيجوا مركواد رمضان مبارك maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan haddii aad leedahay indho qaleel xilliga aad sooman tahay waxyaabaha laga baahan inaad aad ugu dadaashid ayaan rabaa muuqaalka inaan idinkugu soo gudbiyo daawasho wacan. mar kale waa aniga Dr. Yaxya u barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga xilliga indho qaleel qabtid waxyaabaha badan indho qaleelkaaga aad kaaga sii daraya waxaa ka mid ah in oo ilintaada ay baxdo taas oo keeni karta mar qaar xilliyada kuleelka oo kale in aad ilintaada ay baxdo sidoo kale biyaha jirkaaga markii uu yaraado waxay sii keeni kartaa in uu indho qaleelka kaaga sii daro xilliga aan soomanahay maadaama biyaha jirkeenu aad u yaraanayo waxyaabaha laga baahan yahay waxay tahay mid koowaad inaad ku dadaashid xilliga anfurka iyo suxuurta dareeraha aad qaadanaysa mise cabista biyahaaga in aad u badisid maadaama maalintii oo dhan aad sooman tahay sidoo kale waxyaabaha laga baahan yahay xilliga soonka ah anfurka iyo suxuurta in aad u badsatid maadooyinka laga helo vitamin C-ga vitamin A-ga iyo zinkiga waxyaabaha laga heli karo vitamin A-ga waxaa ka mid ah karootada beerka iyo caanaha markaa la fadhiisiyey sidoo kale vitamin C waxyaabaha ka heli karta waxaa ka mid ah liinta basbaaska mise waxyaabaha kulul sidoo kale waxyaabaha ka heli karta waxay tahay barbarooniga zinkigana cuntooyinka markaa zinkiga waxyaabaha ka heli karta waxay tahay beerka hilibka iyo dhammaan waxyaabaha cagaarka ah iyo miraha dhammaan miraha kala duwan inaad qaadatid xilliga anfurkaaga iyo suxuurtaada aad bay kaaga saacidaysaa indho qaleelkaaga inay kaa saacido sidoo kale waxyaabaha inaad ku dadaasho la rabo waxay tahay inaad qaadatid goojooyinka markaa lubricantka mise artificial tailka oo indhaha markaa lagu qooyo inaad maalintii 3 jeer 4 jeer aad qaadatid taasna waxay kaa saacidaysaa in indho qaleelkaaga uunan aad u sii darsanin xilliga aad sooman tahay intaas ay muuqaalka kusoo gabaynaa haddii aad ka faa'iidaysatay muuqaalkan like saar waxaan idin rajaa caafimaad iyo nafiyo